isbitaallo free ah oo dawladdu ay bixinayso in dalka oo dhan uu yeesho iyo isku mowqif u joogtaa eebada qabiilkiina eed ka fogaano ayay isku mowqif u joogtaa ummadeenna israacdiyo iskaashiga guud bay isku mowqif u joogtaa nin waliba suugaantiyo murtiduu sameeyo soo dhiga adduunku ku sifaysan yahayoo dadku wada sahminaya daawasho wacan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة ضيال أمد الصومالية ملك سيجوكتو وسلامنا وكوحدي اسكو موقف وحانا كل سلامنا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي هو أبوان جبريل حسن حاد حرسي حاديرة هالكان وحان رواينا نكسو جيدنا برامج كاس أو أي سو جيدين دوتو كوحدة اسكو موقف كوحداس أو يسوي جرتا أبوانو جلايال heesayaal laxamiiste muusiishin intaas kooxdaas oo ka kooban tiradooduna ay gaarayso 30 baa barnaamij cusub soo gudbin doonta barnaamijkaas oo aan wada wadaagi doono haddii ilaahay idmo magacaygu waa jibriil xasan xaad xirsi abwaan xaadyare isbitaallo free ah oo dawladdu ay bixinayso in dalka oo dhan uu yeesho iyo isku mowqif u joogtaa eebada qabiilkiina eed ka fogaano ayay isku mowqif u joogtaa axmed daayir jirti ummadeenna israacdiyo iskaashiga guud bay isku mowqif u joogtaa maxamed cabdille cilmi inaan eelka qabiilkiiyo afada ka fogaanay isku mowqif u joogtaa waa magacaygu waa ashkira budan in ilaahay dartii ummadan isku raacday isku mowqif u joogtaa magacaygu waa farxiye barow asalaamu calaykum bulshooyinka soomaaliyeed waa idin salaamay inaan naga guuro wadadku aanan degaabay isu mowqif isu taagtay ismaaciil cabdi jaamac waxaana lagu xantaa qardaadubiyale waxaan qardaadubaa wixii nabadda ka soo horjeeda daawadeel mar labaad kusoo dhawaada waa kooxdii isku mowqif waxaan ahay anigu jibriil xasaxaad xirsi xaadyare guddoomiyaha kooxda isku mowqif horeyna waxaan u ahaa abwaankii alifay muhandisay sameeyey barnaamijkii aada maqasheen ee iskumaan ninkii sameeyey baan ahay sidaa darteed barnaamijkaas waxaan siiyey oo ku wareejiyey tv-ga iyo idaacadda qaranka ee raadiyo muqdisho aniga oo uga golle ama uga danle in ummadda soomaaliyeed fikradeydaba ha ahaatee ummadda soomaaliyeed loogu shaqeeyo dadkana la gaarsiiyo tilmaam fiican iyo sawir qurxoon barnaamijkaasna sidaas oo asna ahaa haddii aan maanta ka hadalno barnaamijka isku mowqif ay u joogto iyo waxa loo sameeyey kooxdan waa koox sidaan nii sheegay isugu jirta jilayaal heesayaal fanaano abwaano iyo qoraa waxay wadaa riwaayado gabayo geeraaro ummadda soomaaliyeed lagu wacyigelinayo oo loogu tilmaamayo waxa qurxoon iyo jidka hagaagsan qodxaha iyo madmadowga iyo leexa iyo qabyaaladda iyo khilaafka iyo tafaraaruqana looga gudbinayo oo looga leexinayo waxa wanaagsan oo ilaahay amray oo rasuulkiisu jecel yahay oo diintu ay qabtana lagu tusayo oo lagu oga tusaaleynayo sidaa darteed mawduuca maanta ugu horeeya oo muuqaalka ah oo kooxda isku mowqif qaran ay soo jeedin doonto wuxuu u dhici doonaa sida tan wuxuuna ku saabsan yahay waa maxay dawlad maxay tahay ma qofbaa ma laba qofbaa ma 5 qofbaa ma mujtamac dhanbaa erayga dawladse muxuu xambaarsan yahay macna intee la-eg buu leeyahay masawir intee la-eg baa laga dheehan karaa duxda uu xambaarsan yahay waa maxay barnaamijkaygu intaas ayuu ku saabsan yahay ka bogasho wacan waxaan dhex gelaynaa barnaamijkaygii waa maxay dawlad tilmaanta uu leeyahay ma af qalaadbaa ma af shisheeyaa asliyan ereygaasu ma af soomaalibaa ma helayaa markhaati fur ama marag fur afmaalka iyo abwaanada soomaaliyeed oo suugaanta sameeyey ay ku caddaynayaan intaas haddaan taa uga baxo maxaa intee la-eg buu xambaarsan yahay halkaa markaan taa uga baxo isku mowqifow waxaad ii sheegtaan waa maxay dawladu maxay tahay bal ii sheeg adugu dawlad waa nin 100 halaad haysta oo qore haysta ayaan dawlad u aqaanaa haye adigana aniga waxaa la yihahdaa qardaadubiyare haye qardaadub ma dawlad baad hadda aad
isweydiinaynaa waxay tahay war dawlad waa la yaqaanaa waa nin iyo naag isjeclaaday oo guri fiican ku nool oo wixii ay cuni lahaayeen iyo amnina haysta dee dawladi waa intaa dawladii waxa weeyaan dad meel wada degan isku mowqifa isku dana hoggaan daacada yeeshay nabad iyo nolol ku nagaada taasaan dawlad oqana adna waraaba la keenayba dawladda hadda la isweydiinaya carruur maana annaga shala maan dhalana day dawlad waa nin shabaaga inta diyaarsaday badda galay oo soo xaabsaday kalluun oo jeebka lacag ka buuxsada calooshu halkaa ay joogto ay rubaya wadkaa dawladkaas kale ma jirto walaal aniga aqaana dawlad cimrigaygu waa waya dawladda ana aqaana waa landheere banaan degay oo xoolo badan haysta maanaan aqoon dawlad say weydiisay saaka waa aqaanaa dawlad oo waa taqaanaa dawlad waxaad u taqaanaa way taqaanaa dawlad waxaad u taqaanaa nin landheere ah oo xoolo badan haysta oo banaan degay kaasa landheere aqaana ayaa igu haysta okay ereyga dawlad waa af Soomaal biyuur ah waa laba erey oo isku tagtay waa dow qaada hebelow ereyga dow iyo ladis oo la isu geeyay macnaheedu uu yahay marka la fasiro Soomaali ahaan lagu fasirana wuxuu noqonayaa dawlad waa jidka lagu gamco ee ummadu leedahay oo la kala xigin baa waxaa la yidhahdaa dawlad maadaama ay ladis iyo dow oo la isu geeyay dawlad tahay macnaha uu bixinaya waxa weeye jid ummadan ka wada dhexeeya oo lagu gamco oo la kala xigin baa dawlad la yidhahdaa suugaan baa tilmaamaysaa suugaan badan baa sheegaysa maamaayaa sheegaya cadayntooda waa saa sidaa darteed maadaama aan nahay ummad Soomaaliyeed oo ummadda Soomaaliyeed wax u gudbinaysa sidaasaan fasalkiisiina usoo jeedinay aana ku cadaynaynaa waayo barnaamijkaygii baan guda gelaynaa haweenku wax badan bay sheegtaan waana la midigeeyaabay la dhahaan maanta talada wax laydinka siinayaa inaan tashanaana rabnaa balbaxaajiyo soo rido iskala budulay gudoomiye tala haween lala qaatay laguma guuleystay maadu kaadis bal wuxuu yidhi day yaa noo diiday talada maxaa dhacay annagaa maanta iska leh oo dumar ah 30 sano rag wuxuu noo qaban waayay annagaa qabsanayna dawladda meesha u sarraysa oo madaxweynuhu ka bilowday ilaa isbasiiniga annagaa leh waa inaan sugtaana saa wax u qabsana aragtaa ilaa 30 sano idin sugan waxba noo qaban weydee waa runteed gabadha oo idinku maxaad bedelaysaan waa runteed waxaa idinku bedeli weydeen baan bedelaynaa wax badan baan bedelaynaa 30 sano idin sugna maxaad noo qabateen warey warbashuga naamaan dhay duca qabto waxaan ku leeyahay sawtii horay Soomaalida ugu mahmahday ma aha maw dameera la saaray iyo reer ay muray u talisay labadaba rug baa u dambaysa maya taas ma jirto dawladda anaka aan qanayna anaka xilka qaadanayna anigu waa taageersanaa gabadha ha loo joojo doorkan aqalkaba waxa laga yaabaa aabihi hooyo kii u taliyaba inuu badbaadin karo markaa doorkan ha loo joojo yaana dee la wada siin waxay rabaan laakiin balladhaxada isku yimaada xal waa runta allah ilaahay waa runta war baan kuu sheegaya gabaray soo dhawow horta khaladka waddanka ka dhaca inta ugu badan idinkaa kowka ah caddayn baa noo haya wiilka wax soo dila idinkaa qariya gurigiinuu seexdaa midka wax qarriyaa idinkaa uu inla hoydaa gurigiinuu seexdaa midka wax walaaqa idinkuu inla hoydaa gurigiinuu seexdaa guri gabdheed buu tagaa haweenka Soomaaliyeed baa dhalay oo uu dhaxaa midka waddanka masiirkiisa shisheeyaha iyo balaayada kale dabada kaga daawan gabar Soomaaliyeed buu la hurdaa waxaa la rabaa saacadaha waaweyn markay tahay oo xaaladu baraka ay marayso inaad ragga wax u sheegtaan idinkaa laydinka rabaa hawshaas doorkaas aad leedihiin waa qodobka labaad annaga wax waa qabana hadda kadibna wax waan qaban doonaa waana ku soconnaa dalkana isbeddel baa ka muuqda bal maanta noo kaadiya doorasho isku soo sharaxa ina diidi mayno sharciyan iyo xisdiyan iyo caqliyan intaba barbaarinteeda idinkaa lahaa hooyooyinka yaa tihiin hooyooyinka Soomaaliyeed waa soo dhaweynaynaa laakiin haddii waxaad samaysaan ha naga harin oo sidaa ha nagu daynine haddaan dhalin leenahay na toosiya waa qaadanaynaa inaad wax noo sheegtaan baan rabnaa inaad wax nala socodsiisaan baan rabnaa laakiin wax oo dhan baan la wareegaynaa hadda dumar adduunyadaba kama dhicin dee xoogaa halkaasna waxa weeye waxbaa kasoo laabanaya marka aan isku raacno oo aan isla ogolaano waddanka inaan badbaadino oo dalka badbaadino oo dadka badbaadino oo dhaqanka badbaadino oo dhulka ka badbaadino waa qardaadu maxay kula tahay oo isku mowqif aan noqono gudoomiye
anigu dumarka khibrad baan u leeyahay haye dumarna lama tashado haye in dumar la tashadaa barwaaqa ma dego haye duulku guriga iyo caruurta ay nooga shaqeeyeen midka baarlamaanka inoo dhex fadhiya meelahan ku loohan baan wallahi dalanahay ma haddaad rabtaan inay waxay maqleen sheekadan ah beesha caalamka dumarku boqolkiiba 30 waa diido hor leh oo beesha caalamka aad sheegaysaa ninkaana waa ka maqlaayay teleefanadooda horta ma haystaan haa waa haddaan ba wacayaaba anaa wacaya beesha caalamka ma dalkay nala leeyihiin ma dhaqankay nala leeyihiin ma dhulkay nala leeyihiin ma haystaan teleefanadooda haddaan garaacayaa sheeg 99 weeye telefoonkooda 99 kii booliska maraykanka ama war hawl kalaad wadaa war anigu boolis wacan maayo laakiin dalkayga annaga mas-uulka inoo soo dhuuntay ilaah baa igow waddankayaga annagaa iska leh masiirkiisana annagaa leh annagana taladiisu naga go'daa wax yar raalli cid kale ayaa laga suud abti oo macaana wax yar raalli ah haye meel caalam waddankeena lama laha haye dadkana lama dhalin haye nalama dhalan haye dhulkoodii way haysaa annaguna kaayagii baan haysanaa haye gabdhahana yaan la gardarin hadda si gaar ah yaan isha loo saaray gabdhuhu way nacanaan waxaa la yidhi nin farasku ka gaabiyey hadduu u dheereeyo xataa usha wuxuu ugu dhuftaa kuu badiyo sax alool marka waa yahay gabdhuhu hab inaan badinay rabaanoo wax fiican keenne gabdhuhu cadaawad kuma jirto waa garto waana xanuunsadeen hadal fiicanna waa tiri hoos ragga wax ugu sheegana waa tiri sariirta waxa laysuu sheegay taas ayadana waa gar agtaana gabdhaha waa saas hawshaas idinka inii taala sidaa markay tahay waxaa muhiim ah rag iyo dumar dantu nama kala geysan waa dadkana waana wada dhalay waana wada dhalna dalkana annagaa wada leh sax meel aan isugu nimaadno isku mawqif aan isugu nimaadno ma isku raacnay waddanka inaan meel fiican ku jahayno ma isku raacnay waddanku wuxuu ku hagaagayaa rag iyo dumar isku duuban guul ay dumar ku maqayna ma dhalato qoyskuna waa aabiyo hooyo waa halkaasba ka tafirmaan ninka yidhaa dumar baan ka maarmaya guul ma gaadhayo meel lama dhisayo saas wey ha dumar la-aantii lama noolaan karo la-aantii xaajiyadu way ogta dumar la-aantii lama noolaan karo waa sax marka waxaan garaynaa laakiin hadda waxaan rabnaa ma dhasheen gubaabadiina la-aantoodna ma shaqeyn dii la qaadanaya hadda iskuma qof mana hadda ma waxaad leedihiin isku mawqif baan suga haye waa goorma waa xilligee 30 sano aan sugayna hadda iyo ballan haddaan ballamaynaa waxna waa hagaajinay waa isdhaafsanaynaa waxna waa hagaajinay hadda kadibna waa hagaajinaynaa inaad idinkuna nala shaqaysaan annaguna aan la shaqayno waddankana dhibaatada iyo dabamarka iyo shisheeye-aadka iyo khilaafka inaan soomaalinimo uga gudubno oo danteenna aan u jahaysano u soconno ma isla qaadano isku mawqif bakana isku mawqif baan kana okay waryaara hadda annaga iyo waxooga soocan baana si fiican gabdhihiina waa naga tageen haye maxaan yeelnaa ma waxaan yeelnaa in dumarna xukumo hadda bayna la qumanta qadas maxay ku waryaale walilah bayna leeyahay ha war dumarka beesha caalamka halka inagu gaarsiiyey xafiisyada kuwa kaatibinta ka ah ee yar baadan ba ogolayn waabase baarlamaanka iyo golaha sare ha kuu fadhiisteen waxaan beesha caalamka inagu soo hagtay dumarku carruurta haynoo xanaaniyeen oo haynoo daryeeleen oo haynoo kobciyeen aqaladaha ku ekaadeen innaguna si aanay goldoloole inooga helin aynu shaqadeenna ka adkaano dadka iyo dalka wax u qabanno saasay aniga igula qumantaha adigana war dumar yaan laga tegin iyadoo meel caalaba aan aqoon oo dawladu noo iman inagu hidiyo dhaqanba dumarku tala kasta rag waxbay ku lahayn geesi kasta iyaga wax furi jiray ilaa iyo wiilwaal qofka toorata taariikhda meel ka baqayn ma jirtan dumarka xaqooda la siiyay maanta waxay barteen waxba muhiimana waxba wanaajinayaan iyagana inaga wadanaysan iyaga inaga daacsan naagi wadankeeda basaas mayso wadankeeda iibin mayso wax u qabata mooyee su'aal ma ku kara haddii islaamtu baarlamaanka fadhiisato adna aad wasiir noqoto yaa reerkii carruurta u shaqaynay carruurta waa labadaba loo shaqeyna hawsha qaranka iyo hawsha qoyska waa lasku wada karaa wariyaa arrintaas waxba iga baxay aakhir subaanka waxaa la arkaa li kun nooc saambreyla anigu ma qaba laftigaygu in dumarka tada loo dhiibo laakiin in lala tashado oo liyaa maxaan yeelnaa oo xaggee u jahaysanaynaa waa qabaayo la weydiiyo talada wax laga siiya laakiin maamulka dalka iyo maqooridkiisa in dumar inta loo dhiibo la yidhaahdo hogaamiya aniga xabaa laftigaygu waa diidana anigu laba dhinac baan ka eegaya haye dhinacna waa dhaliishooda dhinacna waa wanaagooda sax dhinac waa dhaliishooda oo haddii naagu ay sarrayso qof dumarii sarreeyo shaahidkay iimaan ka noqon lahayd xagga diinta markii la eego waa sax waa mar sax
ayadoo nin taagan yahay neef ma biraysan kartay awooddaasna waa la siin lahaa waa sax dhinacaas dhimanaashaha waan ka arkayaa marka waxaa weye waa carruuraad weyna waa la dhahaa inta badan laakiin haddana hal baa jira sax loo qariyaa la-aantood loo qariyaa la-aantood nina meel ma mari karo dadna dad ma ahaan karo sax waa bele loo baahan yahay waa mar oo waxaa weeye guriga ku fiican yihiin guriga keliya ma ahe caaqilkii soomaaliyeed wuxuu yidhi habeen naagtaadu kaa tala roon tahay baa jirta waa sax mahmah dhahaysaa baa jirta sax saas markii ay tahay anigu waxaan qabaa in la isku wado dadka oo aan la kala tegin la kala tegin oo la isku hayo haa khilaafna ha la dhowro oo ha laga fogaado sidiisaba hal arrin ah diina weeyo nabigeena calayhi salaatu wasalaam allahumma salli ala sayyidina waaba tii uu lahaa laa tafaraqu waa sax ha kala tegina sax wadama waxaad leedihiin dumarkeenna annagoo wadana haddaynaan meel marin sax nin dumarkiisa wata iyo doqontiisa mid wataa la dilaya sidaa awgeed waxaan naga antusha isku saarano hablahana si walba aan u qancino annaguna wixii wanaagsan aan qabano waxaa la yidhi saddex haddaan saddex loo hayn duniduba khatar bay geli lahay haye waaya ragaan naaga loo hayn haye masaan hurdo loo helin iyo libaaxan daaca qurun lagu ridin saddexdoodaba haddii aan saddexdaas lagu taagi lahayn kasal bay ahaan lahayn oo macnaheedu yahay maska aad aragteen oo jilbiska oo wax dila hurda ilaahay ku sallada 3 daqiiqa asagoo socon buu seexanaya raggana haddaan naaga loo samayn lahayn iyo ciyaal ay u dhalaan iyo raaxadaas lagu mashquulin lahayn wax allaala waxay arkaan waa haligi lahaayeen libaaxana neefka uu cuno 45 cashu ku qadaa daaca qurun buu ka qaadaa haddaan asagana daaca qurunkaas lagu samayn lahayn wax oo dhan baa haligi lahay marka dumarka noo daayay waa haysanaynaa waa la tashanaynaa laakiin safka hore saasaan isku ognaa soo maa wadama waxaad leedihiin safka hore dumarka lagama maarmaayo laakiin safka hore ayaana geyni safka hore raggii baaba sii xumaanaya safka kor hore hadday astaahil u yeelato oo qof kasoo muuqan kara ay noqoto oo rabbi firfircooni siiyo bahayirtii nebi salaaman boqolad ahayd ii sheeg waxa weeye balqiisa balqiisa waa dumar bay ahayd waa sax wax rag oo ka aqli roon waa la waaye sax dumarka hal baa ka soo baxa sax halkuna waxay noqotaa wax lala yaabo bilo oo cajiib ah sax hadday yeelato waa la siin jagada sare waa siinayna odada okay haa bal hala gaaro waaye hadda laakiin hadda soo ma aha akhru salaanka kun nooc casaan bareyla baa la arkaa waan ku yidhi aan kugu celiye halkaasaan u daynaynaa diilaayd dhaaradu hadday laba yihiin dheri ma qaadaan waxaa dhagaxa kale loogu daray shaygu yuu dhicin qofna keli ma dhiirado haddaan dhowr la ciidamin war dhuunyaale kama liidane aan isku dhoobnaano miyaad leedi waa caynkaa weye sidaasaan u qaada min luux baa lagu dhigaa macbuud waa eebahey mawd waa kii loo dhintaa maral ruuxuu hayaa maqaam maral ruuxuu hayaa muraalkii uma dhisni ee mabda-o waa kii macaan ninkii kale waxaan lahaa mufsad meel marahayo marooqsiga doonayo markii loo doorta madax markiiba dhaarbeena maray magaca soomaalidow masiirkan kama sugna e walaal midigta isqabsada ninkii kale waxaan lahaa maguuraan ciidda iyo manfacadii aan lahayn kitaabka munasalka amusuqa oo bi'ina iyo midnimo weyn lagu mitido ninkii kale waxaan lahaa below meeraysto oo dunida soo marahayo macaan eeyo hadalka oo intuu meediya ha tago maslaxadii baan wadaa ku mara dhaaranahayo mariid uurkiisu yahay micidu ay tahay mandiil midigtana dhiig ku wada masiirkan kama sugna ee magaca soomaalido walaal midigta isqabsada musuqa oon bi'ina iyo maguuraan ciidda iyo manfacadii aan lahayn kitaabka munasalka oo mid lagu doorsanayo jirin midnimo weyn lagu mitido meekhaanka gobolada meel kastoo dalkeenna federaalku maamulo mawjadaha shacabka ah miyi iyo magaalada maantadaan dhex joogay matashaa isku mowqif haddaad maaddo salugto adigoo aan murmaynin dadku waa isku meel oo isku mowqifna weeyo madashaa ka dhaxaysiiyo miiska dooda u taalee adigoo aan masuuginoo mirif isla siinin ha munaafaqadayne bal markaa ka jeedi oo walaal dadka soomaalida meeshay u socdaan adee raac duca qabe ha ka leexanin soomaalinimadaa kugu filan midnimadaa kugu filan iskaashigaa kugu filan horumarkaa kugu filan wada qaadashadaa kula filan
tala wadaaggaa kugu filan han israacno waa kooxdii isku mowqif oo daawadayaan in leh sidaas iyo nabadgelyo salaamullahi calaykum waa inoo markeena labaad noqodka labaad oo aanu inii soo gudbin doonaa haddii laadma barnaamijyadeeda kale salaamullahi calaykum